waxaan ku warwareynaa wadankiina wax u barta oo xambaara waajibkiisa. xafladan ayaa lagu soo gootinayay ilaa 120 arday oo maanta ka qalin jabisay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Muqdisho ay bixiso, iyadoo madasha xafladda lagu guddoonsiinayay shahaadooyin isugu jiray ardayda master degree iyo diploma. waxaa ka soo qayb galay xafladda maamulka jaamacadda, waalidiin, abwaano, mas'uuliin ka socotay dowladda Turkiga, mas'uuliin kale oo ka socotay shirkadaha isgaarsiinta dalka iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay. ardaydii qalin jabisay maanta ayaa wajidooda waxaa laga dheehan karay farxad, kuwaas oo isugu jiray rag iyo haween, waxaana sidoo kale ka dhex muuqday dad waaweyn, taas oo muujinaysa in waxbarashadu aan yar iyo weyn u kala gaar ahayn. waa kan Maxamed Cabdullaahi Mursal oo ku hadlaya magaca ardaydaasi. macallinkeen allow dhowr, macallinkiisa allow dhowr ayaa la dhihi jiray. waa u mahadcelinaynaa macallimiinta. midda kale ardada oo runtii aan magacooda maanta ku hadlaayo oo ii soo xilsaarteen oo ku mahadsan yihiin marka hore kalsoonidooda ay siiyeen. midda kale hambalyo ayaan leenahay, dhammaanteen waa isu hambalyaynaynaa. congratulations all. gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho Dr. Cali Sheekh Abubakar oo hadal ka jeediyay munaasabadda xafladda qalajibinta ayaa sheegay in jaamacadda Muqdisho ay ku talaabsatay waxqabad la taaban karo, isagoo ardaydana kula dardaarmay inay sare u qaadaan cilmiga ay soo barteen. dhalinyaro waxqabad iyo kumitida waxbarashada waligii hadaalina. طبعا برنامج كان خصوصا مري ودنا خصوصا مري أو طبعا يزيادة سنة رنهان سوسعتي دبعت بدن بالغ صوم مري وأوجي طبعا دتك رنهان ما تشاهدوي كمتيستي وأوجي دبعت بالغ صوم مري، لكن الحمد لله يعني خارجين دبعت داس بدن كده صعب جرت ما تحاول الشهادة دي أيام ديارة سيد الله أقول يا هاي لالوش كأكل حديث الله أقول هذا عيب وين بين كل إنسان مركو حال الرباط دتكينا وحبرتي إن لا نديره وحلا وحي بين أيال رباع دد يرماها ودد بقول كبدن دد كمان قادنا يرمنا شهادويكن. dhammaan martida khudbadaha kala duwan goobta ka jeedisay ayaa ka wada mideysnaa dhiirigelin, hambalyo iyo dardaaran ay u jeedinayeen ardayda Soomaaliyeed ee maanta ka qalin jabiyay jaamacadda Muqdisho. Kawsar Cabdiraxmaan Cilmi, Home Cable TV, Muqdisho.